kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Xareed Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga mudiirka oo habeenada Isniinta iyo Khamiista soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media daawadayaal habeenimo Khamiista soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 1 bisha Afraad ee Abriil sanadkan 2020 qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka bandhiga mudiirka waxaa kamid ah Soomaaliya oo ku biirtay hay'adda maalgashiga adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo MIGA sidoo kale waxaan idin haynaa sideen u joojin karnaa faafinta xogta marin habaabinta ah ee ku saabsan COVID-19 intaasi daawadayaal waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena fadlan daawada hadii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabta nala jaan qaado oo subscribe saar channelka gambalelkana furo muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay fadlan follow inooga reeb waatahay daawadayaal markaana waxaynu gudgalaynaa barnaamijkeena bandhiga mudiirka qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa Soomaaliya ayaa ku biirtay hay'adda maalgashiga adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo MIGA dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xubin buuxda ka noqotay hay'adda damaanad qaadka iyo maalgashiga ee magaceeda loo soo gaabiyo MIGA ee qaybta ka ah bangiga adduunka Soomaaliya ayaa noqotay dalkii 182 ee hay'adani xubin ka noqda waxa ay hay'addu sheegtay in ay sabab u tahay xiriirka dawladda haatan jirta ee Soomaaliya iyo bangiga adduunka hay'adani oo magaceeda loo soo gaabiyo MIGA ayaa ah hay'ad maalgashi oo hoos tagta bangiga adduunka waxaana xubin ka noqon kara hay'adaas kaliya wadamada ay sida weyn isugu dhow yihiin bangiga adduunka isla markaasna sida wanaagsan u maamula dhinaca maaliyadda arintan ayaa Soomaaliya u horseedaysa maalgashi iyo kobac dhaqaale ku biiritaanka hay'adaas iyadoo haatan wixii ka dambeeyana ay hay'addu howlo muhiim ah ka qaban doonto gudaha dalka Soomaaliya maadaama ay tahay hay'ad caalami ah oo dhinaca maalgashiga ah dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan ka gudubtay wareega koowaad ee arrimaha deyn cafinta iyadoona dhanka kalena bangiga caalamka iyo hay'adda lacagta adduunka ay ku amaaneen Soomaaliya qaabka wanaagsan ay ula dagaalantay wax isdabamarinta iyo nidaamka maaliyadda oo ay si wanaagsan u maareysay taasoo keentay in laga gudbo wareega koowaad iyadoo haatan wajahaysa wareega labaad ee arrimaha deyn cafinta oo ah midkii hore midka sahlan waxaana dawladda Soomaaliya aad loogu amaanay arrimaha dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sida wanaagsan oo ay ula shaqaysay bangiga adduunka in lacagtaasi deynta ah dib looga cafiyo waatahay daawadayaal wili barnaamijka bandhiga mudiirka ayaa daawanaysaan markaana qodobkeena kale ayaynu eegeynaa sideen u joojin karnaa faafinta xogta marin habaabinta ah ee ku saabsan COVID-19 warbixinada khaldan ee ku saabsan COVID-19 ee dhaliya coronavirus ayaa qabsaday internetka khubarada ayaa ugu baaqay bulshada inay ka digtoonaadaan arintaas khatarteeda leh oo abuuri karta baqdin fara badan oo aan loo baahnayn oo saameyn taban ku yeelata bulshada haddaba qodobka koowaad wuxuu yahay in uu qofka ka fikiro waxyaabaha uu bulshada u gudbinayo waxaad rabtaa in aad qoyskaaga iyo saaxiibadaada ka caawiso inay xog ogaal noqdaan sidaas daraadeed marka aad hesho xog kuga soo gaartay email WhatsApp Facebook ama Twitterba waxaa laga yaabaa inaad degdeg u gudbiso balse khubarada ayaa sheegay in waxa ugu horeeya ee aad samayn karto si aad warbixinta khaldan ugu digtoonaato ay tahay inaad ka joogsato oo aad ka fikirto haddii aad ka shakiso ka yara joogso kadibna xaqiiji sida wararka beenta ee corona u faafan qodobka labaad waxa uu yahay iska hubi isha aad warka ka soo xiganayso ka hor inta aadan sii gudbin isweydii su'aasha
asaasiga ah ee ku saabsan halka ay ka timid warbixinta. ka fiirso haddii uu xalku yahay xog warbixinta ka timid saaxiibka ama saaxiibkii ama diriska qof ay isla shaqeeyaan oo uu soo gudbiyey. ilaha la isku halayn karo ee xogta laga helo waxaa ka mid ah waaxaha caafimaadka bulshada sida NHS iyo weliba WHO ama xarumaha xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee Mareykanka sida ay sheegtay Claire May oo ah tafatire ku-xigeenka ururka xaqiiqraadinta ee Full Fact oo fadhigiisu yahay UK. khubaradu ma aha kuwa aan khaldamin balse way ka fiican yihiin meelaha kale ee aad xog khaldan ka heli lahayd. qodobka saddexaad ee looga hortagi karo warbixinada dadka marin habaabiya waxaa ka mid ah iska ilaali qoraalada uu dareenku ku dheehan yahay. waa waxyaabaha na cabsi gelin kara, naga xanaajiya, na walwal gelinaya amaba na farxad gelin kara kuwa aad u baahan. baaqiyada degdega ah ee wax qabasho ayaa loo sameeyaa qaab qofka cabsi gelisa marka ka taxadar. qodobka afraad wuxuu yahay iska ilaali warbixinada dhinaca u janjeera. ma waxaad qof la wadaagaysaa waxa aad og tahay inay run yihiin ama aad ku raacsan tahay. Claire Miller oo ah agaasimaha baaritaanka ee xarunta falaqaynta baraha bulshada ee Think Tank Demos ayaa sheegay inaan mar walba jecelnahay inaan dadka la sii wadaagno waxa sii xoojinaya waxa aan aaminsanahay. si kastaba ha ahaatee waxaa muhiim ah inaan ogaano in xaqiiqdu ay tahay shayga kaliya ee biyo kama dhibcaanka ah ee muhiimka ay tahay inaan wadaagno. haddii aadan hubin macluumaadka aad gudbinayso ka joogso. isku day inaadan khalqal gelin bulshada iyo deegaanka aad ku nooshahay. waa tahay daawadayaal waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena ee bandhiga mudiirka. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.